Assalaamu calaykum. Haddii aad doonayso inaad safarto oo aad ka dhoofto waddan una dhoofayso mid kale, waxaad u baahan tahay hal dukumeenti oo aadan la'aantii safri karin. Waa baasaboorka. Waa maxay sababta baasaboorada isku size u yihiin haddana u kala awood badan yihiin? Waa maxay sababta dadka haysta baasabooro gaar ah ay visa la'aan ugu safri karaan waddamo badan, halka qaar kale ay dhibaato kala kulmaan u safrida dalal kale baasaboorada ay sitaan awgeed? Fiidiyowgan waxaa idinkugu soo bandhigayaa 10 baasaboor ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Haddii aad ku cusub tahay halkan, ha hilmaamin inaad naga mid noqoto. Riix subscribe kadibna taabo gambaleelka. Waxaa isbuuc walba kuu soo dhici doona mowduuceena isbuuclaha ah insha Allah. Nambarka 10aad, Cape Verde. Waddankan waxa uu ka samaysan yahay 10 jasiiradood oo falkaano ah oo dhacda dhexbartamaha badweynta Atlantic. Waxaa ku nool ku dhowaad 600,000 oo qof. Dadka wata baasaboorka Cape Verde waxay u safri karaan 62 waddan si dhib la'aan ah. 41 ka mid ah 62dan waxay gebi ahaanba u safri karaan visa la'aan, halka 21 dal ee soo harayna ay heli karaan fiisaha markii ay tagaan airboorada waddamadan. Nambarka 9aad, Kenya. Kenya waa waddan dhaca qaybta bari ee Afrika, dadkiisuna uu gaarayo 50 milyan oo qof. Haystayaasha baasaboorka waddankan waxaa u bannaan inay fiisa la'aan u safraan 46 waddan, halka 21 waddanna fiisaha heli karaan markay ay tagaan airboorka dalalkaas. Nambarka 8aad, Zambia. Zambia waa waddan dhaca koonfurta qaaradda madow ee Afrika, dadkiisu waxa uu gaarayaa 17 milyan oo qof. Haddii aad haysato baasaboor Zambian ah, waxaad fursad u haysataa inaad fiisa la'aan u safarto 47 waddan, halka 21 waddanna fiisaha heli karto markii aad tagto waddanka aad u socoto. Nambarka 7aad, Malawi. Malawi waa waddan ay xuduudihiisu xiran yihiin oo aan xeeb lahayn, oo dhaca qaybta koonfureed ee Afrika. Dadka haysta baasaboorka waddankan waxay fiisa la'aan u safri karaan 46 dal, halka 23 dal fiisaha heli karaan markii ay tagaan. Lambarka 6aad, Lesotho. Lesotho waa waddan yar oo dhaca qaybta koonfureed ee Afrika, cadadka dadkiisuna gaarayo 2.3 milyan oo qof. Dadka haysta baasaboorkan waxay fiisa la'aan u safri karaan 52 waddan, halka 22 waddan oo kalena fiisahooda heli karaan marka ay tagaan. Nambarka 5aad, Namibia. Namibia waa waddan dhaca koonfurta Afrika, waxaa dadkiisu gaarayaan 2.6 milyan oo qof. Dadka wata baasaboorka Namibia waxay si fudud u tagi karaan 75 waddan, 51 ka mid ah waxay u safri karaan bilaa fiiso, halka 24 ka mid ahna fiisaha la siiyo markay tagaan waddanka ay doonayaan. Nambarka 4aad, Botswana. Botswana waa waddan ay dadkiisu gaarayaan 2.5 milyan oo qof. Haddii aad ka mid tahay dadka haysta baasaboorka Botswana, waxaad fiisa la'aan u safri kartaa 54 dal, halka 24 ka mid ahna fiisaha heli karto markii aad tagto. Nambarka 3aad, South Africa. Haddii aad haysato baasaboorka South Africa, waxaad fiisa la'aan u safri kartaa 70 waddan, halka 32 dal oo kalena fiisaha lagu siinayo markii aad tagto, markii loo eego website-ka caanka ah ee passportindex.com. Nambarka 2aad, Mauritius. Mauritius waa waddan jasiirad ah dhacana badweynta Indian Ocean, dadkiisu waxa uu gaarayaa 1.2 milyan oo qof. Fiisa la'aan ayaad u safri kartaa 100 waddan haddii aad haysato baasaboorka waddankan. 34 dal oo kalena waxaad heli kartaa fiisaha markii aad tagto. Dadka haysta baasaboorkan waxaa loo ogol yahay inay qaataan baasaboor kale ama dhalasho dal kale. Nambarka 1aad, Seychelles. Waa waddan ku yaala badweynta Indian Ocean, waxaa ku nool in ka badan 100,000 oo qof. Qofka haysta baasaboorka waddankan waxa uu u safri karaa 121 dal fiisa la'aan, halka 21 dal oo kalena fiisahooda la heli karo markii uu tago diyaaradaha waddanka uu u socdo. Marka loo eego passportindex.com, waa kan ugu awoodda badan Afrika. Qofka haysta baasaboorka Seychelles waxay fiisa la'aan u safri karaan waddamada China iyo Russia.
intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo mowduuceennii maanta. Wassalaamu calaykum.